maantay waxaan ka bilownay shaqo aad u culus oo yacni maalin dhaweeta maadaama aan dhagax dhignay saldhigga caasimadda maamul goboleedka galmudug oo dhammaanba wax ka jira aan la arag oon xabsi lahayn oon xafiiskii taliyaha lahayn oo xafiiskii taliya-xigeenka aan lahayn oo xafiiskii oobiga aan lahayn oo yacni meel burbursan oo duusan oo siira ah oo yacni u baahan in runtii gurmad iyo dadaal badan lagu bixiyo ayaan u soo istaagnay inaan si isku tashiya isxilqaam ah yacni inaan xaaladdan aan wax ka beddelno maadaama ay tahay caasimaddu muraayaddii maamul goboleedka galmudug laga fiirsanayey waxaan bilownay saakay nadaafaddii iyo fatiiggii iyo goobtii maalindhood aan dhagax dhignay oo aan rabno shaqadii aan dhagax dhignay inaan bilowno oo ah kow inaan maantay wixii nadaafada aan dhammaystirno berrina haddii ilaahay idmo inaan runtii aan jeexno dhulkii labadii qolalkii xabsiyada qolkii oobiga qolkii taliya taliya-xigeenka ilaa 5 qol oo shub ah inaan meeshan ka bilowno ilaahay idankiis dhammaan shacabka reer galmudug iyo maamul goboleedka galmudug maxaan kuu sheegaa xafiisyadooda kala duwan annaguna waxaan u taagannahay inaan gudanno waajibaadka naga saaran shacabka iyo dawladnimadaba habeen iyo maalin inaan u taagnaanno dhiiggeenna inaan u shubno caafimaadkeenna inaan u bixinno dhaqaaleheenna inaan ku bixinno qofka ugu horreeya oo shaqada meeshan ka bilaabata ku deeqaya lacagna wuxuu noqon doonaa aniga waxaana ku deeqayaa maantay meeshaa shaqada ka bilaabanaysa $1 oo lacaga waxaan rajaynayaa in sida aan isku afgarannay wasiirkana aan u sheegnay in aan furi doonno akoon saldhiggaan isbeddel ku sameeya xabsiyadiisa iyo xaafiisyadiisa oo quruxdii iyo bilicdii iyo isku hallayntii la isku hallayn lahaa taliska ciidanka buluuska qaybta galmudug iyo caasimaddiisa iyo saldhiggiisa inaan u beddelno oo wejiga hadda uu leeyahana aan ka beddelno weji qurxoonna aan u beddelno waxaan aad iyo aad u rajaynayaa in dhammaan ayna soo garab istaagaan shacabka caasimadda iyo maayarkiisa maamulka galmudug shacab weynaha reer galmudug guda iyo dabad meelay joogaanba shaqadan waa bilaabanaysaa waana dhammaanaysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in dhammaan arrintaasna lala qaadan doono aad iyo aad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu